بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa baan Mustafa Xuseen Dahar Mustafa Balaas miskiinka yara wada garanaysan weeyaan maanta halkan aan joognaa waxa fiiska cusub ee kooxda waay arag oo nagu talagalay inaan ku soo tabino barnaamijyo riwaayado murti madadaalo umada cunta anagoo ka duulayna inaanu dadka siyaasadda ka jeedino bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan waxa lagu casheeyaa oo lagu qadeeyaa oo lagu quraacda oo lagu suxurta oo lagu soo jeeda oo lagu saamaleeyaa waa siyaasad anagoo doonayna maskaxda dadka barnaamij caafimaad qaba ku shaqo oo laga daayo qabyaaladda iyo mushkiladda faraha badan umada haraysa xafiiska waxaan u furnay labada YouTube kala guray ambalasa kaaliya channel media waa YouTube brand YouTube ku leenahay oo soo galin doono sheekooyinka xiisaha badan leh in hal ku qaban doono umada Soomaaliyeed waxaan ugu bushaareynayaa halkan ay kala socon doonaan waxyaabo aan anagu isleenahay way qancinayaan anagoo doonayna dhalinyartan kooxda waay arag ku midowday waxay u midowday doonay halkan inay ka gudbiyaan inay siyaasadda dadka ka buuxsantay inta laga dhiliid kareeyo wax caafimaad qaba loo sheego oo madadaalays iyo wacyigelin ku saabsan haday tahay qabyaaladda haday tahay mukhadaraadka haday tahay tahriibka oo wacyigelin dhammaan lagu qaban doona xafiiska anaga furnay agaasimaha kooxda ayaa isagu laakiin halkan ka hadli doona laakiin ka sii boobaya maanta oo agaasimaha joogna hawlo ku awood ku maqan marka waxaan inta bushaaradan baan doonayna maanta halkan la soo galay inaan idinka sheego oo idinka soo gudbiyo inta waxaan raacinayaa tix aan ku bilaabayno aan ka hadlayna qabyaalad waxay ka mid tahay cudurrada Soomaalida aad ku aafeeyay imika dhibaatada iyo mushkiladda faraha badan leh ku hay riwaayadda maasada qabyaalad waxa la yiraahdaa qabyaaladu waa mushkil waa sidii ay ka bilaabantay riwaayadii weyneed ee gobolada dhan laga daawaday ee qabyaaladda aanu sameynay guri Ibrahim Dool oo urinteedii firideeda anagu aan lahaa inkastoo ku arkay YouTube-da qaar iyadoo cid kala sheeganaysa leedahay riwaayadda ma cid kala matash laakiin riwaayadda ninka matalayay qabyaaladda qolo kufaankii midnimo ka qurux badan magac lahaa fikradda lahaa anigu waxa ninka labaad ee koo riwaayadda ila sameeyay ee ila qabay isku waa Saciid Ibrahim Dool abwaan gure qofna waxaan lahayn lama siiyo qofna waxaan leeyahay laga ma qaado adoo qiimiye bulshada wax badan kula qadarin bar bay qalad ku socdaa qorshaha ka leexisa qalfoof madoo socdiyo qof aan jidin ka dhigta erayga waxaan ku socdaa tan dadka u fasiro qabyaaladu anay ku dhacday ana dad qabyaali baan ahaa moogta maalmaha ka mid ah ayaa urur baa la igu daray barsaaka waan sakin waramay horta anigu yahay waan sakin waramay noloshayda nafteeda waa qofku waxa la hadana soo iska waramay dadka waxba kama inuu ka sheego waa khalad horta qabyaali kulli fidma inda anigu inba wuxuu igu yiri wariyaha urba ma horta lagu daro xogaya la iga dhigay mushahar baa la qoray xafiis baan fadhi waa ururka la dagaalanka qabyaaladda iyo quweynta qarannimada Soomaaliya ni wariyaa saxaafadu waa mushkilad saxaafada iska ilaaliyo hooy ina bas socor wuxuu yiri waxay birgi berber mushkiladu ka taagnaydee BB wali xal isku haystay anoo dhalinyartii ku kacsanay doon kamid ah teedani baa su'aal weydiin ku soo horta berberaya waxa soo kor darheerkayga ka soo urkii leegeeriye erayga tan ka tiriyay markaa adoo qiimiye bulshada wax badan kula qadarin mar bay qalad ku socdaa qorshaha ka leexisa qalfoof noo socdiyo qofaan jidin ka dhigta qarannimada dishaa abniga qodax bay ku tahay waxay qaribtaan midnimo qabyaaladu liidatay adduunyadan qaaliga qasiya wixii buu ka dhacay wixii qaran soo burburay qoxontii soo burqaday u kala qaxay qaarad kale ilaa qadarkiisa iyo qabyaaladu ma wadacdan qaan kuma lahayn qabyaaladu liidatay maxay qof bihiima haliye qaran oo kartida birtaba loo quuri karin kuma qof wada yar cilmiga qaybsiin jiro soo saar la qayb kale qabyaaladu heertayo intoo qiil looga dhigay quruumo kala ka timo hawleer qura looga jaray ninkaasuna wuxuu nin macallin ah 4 jaamacadood meel ka dhigi jiray oo wadamada Afrikada looga yaqaanay oo nin la dilay nin oo birdadka birimageedada haduu ahaa afar wadan buu professor ka ahaa laga dambeeyo oo umada
ubaxa soo saari jiray ubaxa beer jiray deetana inay yar baad qabyaalad ahaan u dilay qabyaaladu liidatee hablii qalanjada maxay guur qaadhiso hablii qalanjada ahaa alluhu qurux siiyay dhaba qoryaha maadhiinka iyo gudaha laga qaadan jiray intay raggi quursadeen intay qanacdo shabtiri ka quusatay ayay qiimaha noloshii dadnimo dambiga ayaa qaba tiro miyaan qabri la isdhigayn qolkii la isku aabidayn maxaa miyaan qabri la isdhigayn qolkii la isku aabidayn miyaan dambi qaadi karin maastada qolxeeda waxaan qalinka ugu xidhay qodhiyo xeradaada dayaray waxaad qabsataa muhiima waxaad qortabaa hantiya qalinka saaxiib la noqo marka dhalinyarta waxaan leeyahay qalinka saaxiib la noqo dee maasadana beri hore ugu dambayso maanta jibadun baa deega keentay maasada iyo diyaara يعني إن شاء الله مرت سوود قلنت ورا ماسون توي كبدن تاعي وقت قوي يجي راودين أنت سنوك فايدة سنية وعي قلنت يوتشيت كمان تا يفرتانكا حفيزكا كوحها وعي أرق يجروبيس أنا قلت لك الله إن أنا مضى عقلية وناقصن كلا هذا الله فكرة وناقصن قد بينه وحي عقلية ده تدك وحي باهين أمة الصومالية لما دلنيت الصومالية تدك عقلية قدو ولا كوريا اللي نبي كورين دلنيت الصومالية تدلنا عقلية نوع عكو كوري سياسة qabyaalad isbaahin kan inta hadan ka gudbo maanta waxaan raacinayaa oo imka la sheegay inuu xalta dhintay Allah u naxariistay taliyii guud ee ciidamada qaranka taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeygaas Abdullaahi Fadl Iimaan waxaan leeyahay Allah yarxamah Allah u naxariisto ee qaranka Soomaaliland samiri iman ha ka siiyo ilaahay isagana qabriga ha u nuuro ilaahay innagana inooga daba naxariisto wuxuu ahaa haliyay ku suntan horumarinta ciidamada booliska Soomaaliland wax badan lagu xasuusan doono buu ahaa ilaahay u naxariisto baan leeyahay saraakiil ku-xigeenka dublayaasha dhammaan ciidanka booliska waxaan leeyahay samiriye iman adiga siiya dhammaan qaranka Soomaaliland aad baan idin salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim abwaanka wixii hadal hal oranayay dhameeyay laakiin in yar mar halkan soo istaagay oo ah taasida Allah u naxariistay marxuum sareeygaas Abdullaahi Fadl Iimaan oo ahaa tirarka qaranka dubdhaxaadka oo ahaa waxaan halkan ka tacseenayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan qoyskiisa qaraabadiisii saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka dawladda iyo gaar ahaan ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay حقي باويمي إن لله وإنا إليه راجعون إلهي هون حريستو وحمر له دور كل قواس دونا حبالها مصلها إلهي وحنا قبل أن مرحوم كن إلهي هون حريستو من قرن بوها من قبيل موهين من عرس بوها وحنا إلهي قبل أن إلهي سؤال شوف فيديو كان ردو فردوسنا كورابيو أصحاب تي سي الكيسين وحلين هاي سمر إيمان لما أنتني شعب غير سمال لامب